السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة دركان وأديس أبابا حفلتي شركة قربة جوبتا iyo qaranjoog ee dulmudug meeshaas waa ujeedaan waqtiyada qaarkood Addis Ababa lama imaan jirin intaas wadada waxaana isuma imaan jirin waa qurba joogtii iyo qaran joogtii oo ku wada kulantay magaalada Addis Ababa waxaan rajeynaya inaad si fiican u wada aragtaan lagama sheekayn karo caawa waxa halkan ka socda lagama sheekayn karo caawa farxadda iyo raadinta ka muuqato dadka fiican baa loo afuraya soo dhawaada afur wanaagsan baa ka dhacay isbarasho wanaagsan wajiyadooda farxad baa ka muuqata aad iyo aad halka sultaankii baa fadhiya boorkii baa fadhiya xildhibaankii baa fadhiya dhammaan akhyaartii waa weyneyd wanaag baa ka dhacday aad iyo aad maasha allah afur wanaagsan baa ka dhacay caawa صح ما انت ناس الفيديو على شباب حتى يعني ايوه احمد شاب لايف Berbacondi ya keracondi ya وانا
ninkan waa Dr. Axmed waa Dr. ready Dr. shucuurtaada ka war caawa تمام horteedu waxa weeye horta rajadayna hadda ugu dhowdahay insha Allah sababta waxa weeye dadkii lahaaba diyaar ma sha Allah sanado badan dadku way halgami lahaayeen maanta maadaama aan halgamino waxa weeyaan ninna wixiisa ma haysan karo markaas uu diyaar yahay halkan waxaa fadhiya ugaaski ugaas السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشعب يا بداونا يا محاد لنا عاوة فرحتنا كور. والله عاوة فرحتني وحوية الآلية بارو فرحسن هاي الشعب كله صاروا فرحسن وفرحسين ومرشينين. ما شاء الله نجيب عمل. إن شاء الله تعالى. ولا ولا سمع لنا ولا ولا. الله يعزك أكم بديا. يا صادوا. صادوا. lama qiyaasi karo. Waxaan sugaynaa inay dhahaan booli qaran cabbar madaxtooyadaas oo kale. ما شاء الله. هذا إن شاء الله عفوا ونكسر رمضان كريم عبادي الله إحنا نقبله آمين حوشنا وعنا مسيرنا نهدي لا إله إن شاء الله صدق يوم صدق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فارتا أنا قاعد مع بربات الصوماليات وأنا دولة حي ضد الحرين اللي أفضل على دولة خاطع الشعب ضد الحرين اللي مسكوت كان ما شاء الله ما شاء الله سلام شكل دبيو وهو يوانقرب تعلمنا بربارتا وهو ينتبه أقول إن شاء الله عاوة بولي بيخش ضد وياه عاوة بولي كيش ضد عاوة بولي كيش ضد waxaan leenahay ilaahayna u guuleeyo ilaahayna waafajiyo khayrka ilaahay dulmiga hayna dhaafiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام هو دول المديد هي دول المديد بس مو نحسبها سو سلطان دول المديد بعد دول المديد عبد النور بسم الله الرحمن الرحيم انت شنطة قارضات عرب كده هو يسوي عاو وضرتان وقدومي جريدة نورث أمريكا عاو نشأ نشوف وإصابة وحفر ليها آكل وضرتان وقاشي سلاطينتي أخويا النبي هو نشيد دولة دقاق الصومالية إثيوبيا بلو يمالما كهر وحد أوليدين إن أنا الأدسابة اللي يسوي منكري ما أنت وضرتان الأدسابة أيام يسوي إن شاء الله تعالى برينا وحين قدومتان بري دبو بري دمبر وحين قدومتان تشيجا dadku ha ku oo dulmigana ha iska dulqaado insha Allah ta'ala dulmidid hadaf kiisina insha Allah ta'ala waanu gaarnay waxa dad aragtaan waka hawshu waa hadal yar iyo hawl badan halkaas inoo heeraysaa dulmididki kii gudaha iyo kii dibadda uu midoobay uu socdaa hadii ilaahay inuu xal degdeg ka gaaro maxaa arrinta deegaanka ilaahay raado oo laga gaaro maxaa dhibaatada haysta bulshada insha Allah waxaan u soconaa jijiga أنا سأعمل شيء واحد ما أدري وش تاني أنا مجرم إن شاء الله أنا نقدر هاي صوت عيدروس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وحوي أنت واحد لقى قبل كلام مشرته وهو أبوياه كي يردي يردي أبو أبوه بركة واحد لا هاي كيف تلمدي هاي منها سكر وهذا عيدروس بركة والسلام يا شاء الله بحيا يا أبوياه السلام عليكم هاي ما يشرب بلدي سلام يا دمان ربشوكتا كرنشوكتا رياض سوا سيفي عمل مسدوينا دول مديد أيام ماشي سكوين إن شاء الله دولم بوكايا هذول هنا dhammaan dadweynaha dulmidiidka gurbajoog iyo qaranjoogba waxaa leenahay dulmidiidne no more intaa ka badanna ummadda qaadan doono
shicibka dhammaan waxaan inay dulmidiid garab istaagaan baan ugu baaqaynaa ummadda dowlad deegaanka siday u dhintay insha Allah سلطانك waxaad weydiisaa ka waran shubka maxaad oranaysaa سلطان maadaama adigu madaxii maanta caawa halkan fadhiyay waxaan jeclahay sheegto shucuurtaada iyo dadka waxaad ku leedahay anigu dhammaan dadka dulmidiida oo dhan waxaan leeyahay waqtigii dulmigu wuu dhammaaday cabdiina waa u dhammaatay qashinkiisa waa u dhammaatay بروفيسورك هذا في سلامة يا عاوة كور شعور هذا يا عشرة قبل اسبرشة ولا هذا في حتى سوي شو ناجي شيء ونص صعنا اللي ما كبوري الدولم بس كده قاعد على جدي اللي ما هذا سلامتها عاوة شعور هذا كور عاوة أديات بفي عندها ما شاء الله أنت سمارتي qof umaarta dulmiga diidaysa umaarta rajada umaarta shacabka dowladda deegaanka Soomaaliyeed ugu soo ee jirto marka aad shucuurta ugu faraxsan Addis Ababa meel al-shabaab ku shirto Addis Ababa meel ku shirto Addis Ababa xana shirto Addis Ababa caasimadda waddanka hay هو حرب حرقة وحرب نبي غير ضرب هذا الوضع هو الاسجيل يا sidaad aragtaan caawa waa habeen ramadaanaha waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galnay xafladii weyneed ee qurba joogta iyo qaran joogta oo Addis Ababa ahaa waxaad aragtaan inaan waxaad ogeedeen inaan Addis Ababa isugu imaan jirin 2 qof ama 3 qof oo ay ahayd xero uu leeyahay dulmigii uu baxay darbigiina waan jabinay wax yar baa haray waxa xaggan taagan oo aragtaan Cabdiraxmaan oo taqaanaan Cabdiraxmaan Guray سودانكي سنة حنا سودانكي سنة حنا كل حنا دولك دولك صحيح دولك أقوم بالك صحيح أيوة سوى كلا وحياة جاعان وغرقتان فاتح waxaan u malaynayaa mar dadka dhan way soo istaagayaan ma arki doontaan Suudaanka ayaa ku soo dhaweynaya oo dhowr su'aalood weydiinaya insha Allah si uu ula wadaago mujtamaca shanta qaaradood meel kastoo ay joogaan fariinta waawasido iyo fariinta oo dadka u gudbinayo iyo fariinta mustaqbalka fariinta mustaqbalka waa salaamatay diaspora iyo dadka waddanka jooga waa salaamayeen ninbaa wuxuu ku faanaa jijigala iguma iman karo laakiin waxaan u sheegaynaa annagoo gabcahaysa saleynaan jijiga ka tegayno shacabkaynu ayna soo dhaweynayaan dastuur cadda aan ka saari doono haddii u dhalatay kililka shanaad oo uu ka socdo dadqalatu ay hadda ka taliso waxaa laydinka baahan yahay naftiinna iyo maalkiinnaba inaad ku halgantaan meesha waxa ka dhacaya wax la garan karo oo ibni aadam qiyaasi karo maaha dowladda Itoobiya dhagaa ka xadhatay in indhaha laga geliyo weeye sankaba oo inay ogolaadaan inaynu iska celinno oo xabadi dhacdo iyo inay naga qabanayaan labada waa inay mid doortaan saasaan la الحمد لله رب العالمين عاوة واسعانا يا أنو مرد دبادي قدام اللي سجيمت شنت قارن اللي سجيمت قرب تشوكي يا قرن تشوكي با أنا واحد يرو كلام ما عندكم تريو رقوا تطبب على من رجل كان الفير بقى كان ولا بحكي أنا ويكا يا قندل مستل باينه هلا مستل حاجر وراها من اللي هذا الرصي الرواية اللي أنا يضم الصيب أبو دراني بالي عشان ما أبو كادري أو صعو كادري أو حروه حري أو كروني قدري الرواية قادوا الرصي أمركو عيقوني أبو ليا في البادي هو يقانا مركو عيو علي هذا هان صابلا وري دردوري سي كورنتي لكما سبكني
أقول عيرتي بنا ويرحية مدركة عليها halkaa kelmada ku daray waxaan la doonaynaa dowladda Itoobiya waxaanu ka doonaynaa xaqanagii waxaanu doonaynaa sida ummadda kale 15,000 baa ku xidhay jeelka jigjiga in la sii daayo koonfur afrika ka sii daynaya sacuudiga ka sii daynayaan dowladda Itoobiya laba nin oo taleeskooda waxbay gaadhaan xuquuqdanadii baanu doonaynaa Itoobiya ka rabnaa waraabahan kale kuwa arsaba ku xidhay in la sii daayo kuwa xagga ku jira sii daayo waraabahan in laga qabtaan diyaarina sheekana waa muusiga laga dhigo jeelkana waa in muusiga laga dhigo magacayga aniga waxaa la idhahdaa maadi ismaaciil jirda waxaana ka magacayga waxaa la idhahdaa maadi ismaaciil jirde waxaan ka tirsanahay gobolka jigjiga degmada awbare markaa dadkii odhan jiray looma dhanna waxaan u sheegaynaa hadaan Soomaali nahay oo kililka shanaad degno waan u dhannahay dubaagaana inay naga qabato dowladda Itoobiya sidaad aragtaan weli fari kama qodna baa noole salaadiin badan baa taagan aqoonyahan badan baa taagan qurbajoog fara badan baa taagan halgamayaal fara badan baa taagan halkana waxaa hadda garab taagan Caydruus taqaanaan gantaalaha waaweyn ee nuclearka oo ka soo rido maaragtay internetka balsagana waxaan odhanaynaa laba eray odayaasha dhameeyay waxa weeyaan waxaan wataade waa isha macallina wataade waa dadkii waxay ka koobay dhammaan dowladda oo dhan marka odayaasha dhameeyay maxamed aminow waxba lagama qaban kara dee ya waxa weeyaan hadda cabdiilay ya halkan waa dhiso waxaas ka dhacayaan xagee u socotaa hadda jigjiga ballanteenu waa jigjiga okay ballanteenu waa jigjiga waxaa dhinacan iga taagan waxaa dhinac kaamirada qofka lagu waxaa dhinacan iga taagan suldaanka isagana wuxuu insha Allah la wadaagi doonaa farxadan iyo farxadda ummadda shanta qaaradoodba erayada uu hayo ummadda ee dhaxalka u noqonaya السلام عليكم waxaan warsanayaa horta waxaan soo dhaweynayaa qurbajoogta ama aqoon-yahanada dulmidii shaydalka wax ka cararay oo ninkanu ka eriyey iyo wax dalkoodaba dantooda u baxay khaasatan waxaan weydiinayaa barofesorka la ii sheegay in maraykanka wax ka dhigo maadaama uu dalka u dhashay oo aqoon-yahan yahay inuu kutubka qoray in kale waraalaha waddanka haysta in dalka sida ugu baabiyo taa waan ku su-aalaya barofesorka maxaase inaad wax ka qortaan waa munaasabad waa waddanka ka dhacay wax caadi ah maaha wax la eegayey maaha wax fircoon sameeyey maaha barofesor baa intaa ka jawaab dalkaad u dhalatay aqoon baad yeelatay waddankaagiina waraabaa ka soo dhex baxay reer baadiya oo derbi jiif sameeya buuxaha korontada cilmigiisa badan intaas waa ruux walibana markuu kula dhaqmayo dhaqankuu yaqaanay buu kugula dhaqmaa aqoon maahay waa gaabadii aqoontooda u sheegay barofesor wax ma ka qortay arrintaasa maxaa kaaga yaalla maadaamaad aqoon-yahan tahay waddankiisa ku soo noqday welisa ma la hadaltay wasiirada jooga waddanka gudihiisa mala kulanta wasiir si aan markaa sugaynaa sida ku dhaqsaha badan ra'iisul wasaaraha inaan dhisha ku dhufan si aan introduction soo dhawo adoon dan ku keentay jirid inaad dalka igu soo qiirootay oo ku soo dhaweysay oo dhibaatada socota aad ku tiri assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wuxuu qabanayaa dadka gabadhii waa arkaysa naalika dhawey wax dhacay weligii ma dhicin fircoon kama dhicin wallaahi kama dhicin wallaahi fircoon kama dhicin wallaahi وبني ادم waxaad artay saxanadiisa la siinay adduunka أعوذ بالله
Okay. waxaan rabaa introduction inaan idinka siiyo professorka waxaan chance u yeelanay in aan raadino dhammaan aqoonyahanka deegaanka meel kasta ay joogaan professorka insha Allah professor waka nigana waa Bashiir Garan way qabta weedaka هذه فرحتي واستحجي لي dadkii oo dhan baa isticmaalay marka la yaabina wala marka sidaan idin sheegay aqoonyahankii deegaanka meel kasta ay joogaan dal iyo dibad waxay diyaar u yihiin inay dalka dib u celin ugu sameeyaan ku soo celiyaan waxa loo yiraahdo restoration in lagu sameeyo oo la soo celiyo dhaqankii haybadii karaamadii dawladnimadii iyo sharaftii ay dalku iyo dadku ay lahaayeen dadkaas uu ka mid yahay professorku insha Allah hadduu ilaahay yidhaahdo oo hormuud ka yahay waxaan rajaynayaa inuu laba kalmadood ka yidhaahdo inkastoo waqti casho ku jirno horta halkan baa ina hor yaalla ummad baa ina sugaysa dib baa jira ninkana wuna dhaafi doonaa hawshuna ma yara marka waa inaan dhammaan diyaargarownaa sidaan hawsha u fulin lahayn daacadnimaan u keeni lahayn maamul saxa oo ummadda danteeda ka turjumayna loo samayn lahaa waxaa halkan la taagan professor Ahmed oo aad ogtihiin waxa uu mutaystay deegaanka inuu si wanaagsan ugu shaqeeyo marka bal isagana waxaan odhanaynaa kelmadaha uu dalka iyo dibaddaba uu la wadaagi lahaa iyo wixii dhaxalkii foosha xumaa ee uu kala soo kulmay deegaankii la kubsaday inuu kelmado ka yidhaahdo asalaamu calaykum horta aad baan u faraxsanahay marka koowaad halkan waxaa isugu yimid joogtii ereyada halkan boor baan akrinaya maxay kala ahayd iyo qaran joogtii aqoon-yahanadii waxaana dhihi karaa waxay muujinaysaa inta rajo aad u weyn oo ku saabsan mataqaanaa waddankeenna mustaqbalkiisa guud ahaan anu waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed inay wax ka barato waxyaabihii aan soo marray khaladaadkii naga hadda ka hor inaan wax ka baranno sida professorku uu sheegay inaan isku duunaano future-ka new generation-ka aan uga tagi lahayn inaan miraad hadda dhigno khaladkii hadda ka hor inaan wax ka baranno middaa waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed cabdiilay waxaan dhihi lahaa cabdiilay dadkii meesha iska lahaa way kaceen network ma sii shaqaynayso meesha iskaata waa og tahay adoo hoggaan ah hoggaanka nabadgelyada dahabkii kontrabankan ku qiimeeyay waad garanaysaa maalinkaa dadka dareenkoodu aad u buuxa laakiin maanta waad aragtaa aqli ku dar bahasha iskaga kac ummadda lahayd future-keeda ha ka shaqayso dadkan maxaa ka duwan kilka Soomaaliyeed kilka Soomaalida kilka Xabashida kilka Tigreega kilka Oromada ee hormara reebub maxaa ka duwan Itoobiya kale maxaa ka duwan adiga aan number 1 haddaba abdiilo waxaan ku dhihi lahaa message-ka si fiican u hebel baa lii jeeda hebel baa lii soo arrinta uma Soomaaliyeed way kacday waa diyaar aqoonyahankeed joogtoodii haddaad isku dad inaad caburiso adigu baa banjaray بسم الله الرحمن الرحيم اوكي xaggan waxaa isagana hadda ayla taagan maalqabeenkeenna aqoonyahankeenna Khadar Jibre oo runtii aasaas u ahaa saldhigna u ahaa dulmidiid oo waxyaabaha ugu badan ee dulmidiid ay ku kortay ama ay ku ballaaratay oo ka mid ahaa insha Allah baleerayada uu isaguna la wadaagayo بسم الله الرحمن الرحيم horta dhamaan waa salaamay dadkan daawanaya iyo dadkan faraha badan caawa ay meesha qaadi lahayd isugu yimid in badan bay yiraahdeen waa afar magafe marka waxaan u sheegaynaa afar magafe wax la yiraahdo inuusan jirin 4 million way hadii ama magafe ama waxaad wada ku sheeg laakiin 4 million or more actually I can say 7 million of DDSI dhammaantood waxay diyaar u yihiin
dulmigii inay iska dulqaadaan dulmiga qaadistiisiina wuu insha allah wuu soo socdaa wuxuuna imanayaa very soon marka waxaan leenahay hawl yar hawl badan iyo hadal yar innaga shaqa ay noo taalla iyagana dhaanta u taalo wasalaamu calaykum wari kama qodne faanol saan idiin sheegay reer dulmidiid meel kastood joogtaan waxa ay garab taagan saad aragtaan caftaan sidoo kale jamaal iyo suldaankii dulmidiid ee qurbaha North America waxaan ku soo dhawaynayaa inuu isaguna kelmado la wadaago jamaal si uu bal fariintiisa ugu gudbiyo kuwa dulman iyo kuwa dulmiga diiday intaba si loo xoreeyo ummadda iyo deegaanka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا شعب الصومالي نقول بجوان وش ديالك الصومالي وعليه هاي والله كريم أنت كنت وحماش ما تسوي من أفر بغل وقف وتلك أنا شو وحكي ما دي صار في أمريكا يوروب أفريقيا تلك تشكيل الصوا واحد بهي الدنيا وعداد أمام الصبر وهرمر وأنا بتقولي وأنا وحلقة بصراحة تقول لي كذي توبيا وأنا ولا شيء هلال قفل بقول لي سنو يقرأ ولا صار سووا قلنا الله وحنا بقينا ما أخذ معنا كهستان هنا يدك تاجرسين تاجرسين الحين كده قفل وما صلت هاي جمال waxaa ay garab taagan Cabdi Fataax waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladda Soomaalida shaqadiisii iyo ummadda service-ku adeegu waxay uga tagay dulmigii markuu adkeysan waayay iyo kale talisnimada waxaan weydiinaynaa bal fariimaha ummadda la wadaagayo iyo waayarnimadii uu ka dhaxlay kale taliska marka hore waxaan halka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan shacabka dowladda Soomaalida waqti dheer bay soo keen dambeysay assalaamu calaykum marka hore leeyahay marka labaad waxa weeyaan deegaankeenu wuxuu kamid yahay deegaanada Itoobiya dan federalismka ee 9 gobol waa deegaan labaad ama hadduna hayga koobaad deegaanada ugu waaweyn kamid yahay balse nasiib darro wuxuu noqday deegaan shakhsiyaad ay yeeshaan ayuu noqday wuxuu noqday deegaan xuquuqihiisa dastuuriga lagu tunto dadka wuxuu noqday deegaan dhaqankiisii iyo dadnimadiisii lagu tunto noqday wuxuu noqday deegaan ay dad yar suuqin yeeshaan wuxuu noqday deegaan haddii laga hadlo oo shakhsigu xuquuqdiisa ka hadlo loogu jawaabay in xuquuqihiisa meel lagaga dhaco dadka shacabka deegaanka Soomaalidu waxay u baahan yihiin in loo ilaaliyo xuquuqdooda dastuuriga waxay u baahan yihiin in loo ilaaliyo xuquuqdooda aadamnimo marka waxaan halkan fariin uga fariyaa shacabka deegaanka idinka deegaanka leh shakhsi ma laha koox ma laha deegaanka idinka leh waxaad sameysaan idinka xuquuqdiisa leh idinka xaqiisana ilaashan kara marka waxaan u baahan yahay exactly waxa loo baahan yahay inaad u halgantaan saad u helaan xuquuqiisa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada dulmidiid ee bilaabay inay dulmiga diidaan iyo laba iyo saddex iyo afar waxaan u mahad celinayaa shakhsi kasta oo xuquuqiisa dastuuriga u istaaga deegaankeenu wuxuu ahaa deegaan loogu yimaado sharaf iyo karaamo oo dadku ay ka doortaan sharaftooda marka loo yimaado ay ka doortaan dhimashada laakiin maanta isbeddel weyn baa jira inkastoo dadku iminka soo noolaanayo damiirkeenna aan noolayno xuquuqdeenna dastuuriga aan u halganno isbeddelka dalka ka jira iyo maaragtay nidaamka dimuqraadiga ee federalismka aynu xaqeenna ku raadsanno deegaankeennu wuxuu gaadhay heer dhaqankii iyo odayaashii iyo cidda laga xisoobayay wuxuu gaadhay heer gabdhiheenii sharafta lahaa la xurmayn waayo ayuu gaadhay hooyooyinkii la xurmayn waayo odayaashii la xurmayn waayo odayaa dhaqameed la xurmayn waayo dhalinyartii la xurmayn waayo koox yaroo madartay qodosadii ay maleen marka waxaa loo baahan yahay inaynu taana gacanteenna waxaa la yidhi ninayna shantaadu kaa celin sharci kaama celin marka waxaa loo baahan yahay inaynu u halganno madartay xuquuqaheenna dastuuriga aynanu ku raadsanno nidaamkaas aynu maanta madartay aynu ku raadsanayno waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta kasoo qayb gashay 4 boqol ee kasoo qayb galay odayaal leh ee dhalinyaro leh ee haween leh ee kasoo qayb galay aad iyo aad waa mahadsantihiin assalaamu calaykum okay waan wala fari kama qodno waxaa jooga halgamaagii weynaa Cabdirashiid
halgamaagii weynaa cali shucaar laftiisii labadaba laba halgamaa weeyaan waa ugu talagalay marka wuu ila taagan yahay waxaa kaloo jooga hantidhowrihii hore ee dowladda deegaanka oo markay xisaabtiisa xidhi weydayba model sigiskii meel la geeye la waayey ayuu wuxuu yidhi tani dee sharcigii way ka gudubtee waxaan u malaynaya inaan dhinac uga istaago marka hantidhowrihiina waa joogaa adeeraa wax odhanaya waxaan insha allah kusoo dhawaynayaa markaana cabdirashiid cadnaan baan kusoo dhawaynaya bismillahi raxmaan raxiim anigu wax kale hadda ma odhanay hadal ima laabna rag tashaday rag kale oo tashaday la tartama rag tashaday rag kale oo tartamayaa la tartama waxaan anigu idiin sheegayaa dadkan inay aabbale aabba gooruudin dhali garan maayo horta ilaahay u toobadkeena dambaabina inay gooru dadkan dhali garan mayno isagu inama dhalin aabbada lagu hayo dhallinyarada waxaan u sheegayaa niyu booliska iyo kuwa deegaanka iyo dhallinyaradu khaldoo dhan waddanka idinkaa iskale inay wuu tegaya dadkuna waa kiinni gabdhaha laynaysaan waa kuwiinni kuwa kubsanaysaan waa kuwiinni odayaasha aad caayaysaan waa kuwiinni waxaan din leenahay war nin walowba karaamadaada ilaasho karaamadaada meediyaha dhan dowladda dhan idaacaddeeda cayda loo furayo dhaantada idaacaddanoo cay iyo dhaanta u furan wax caalamka lagu arkay maaha 5 wasiir baa cay lagu 5 baa wasiir lagu siiyey cay baa 5 wasiir lagu bixiyey 7 agaasi baa lagu bixiyey lacagta kelilkoo dhan taalleba hal barkada lagu shubay qofkii soo juuda ayuu baagaan loo daraya ogaadadii iyo suldaamadii salaadiintiinni baa laga dhigay fuundiyaal laga dhigay fuundiyaal guriga intaad dhisto waxa ka soo hadha garaabo ku cunaagteeda fadhi suldaanka waxaan doonaynaa inuu isagoo suldaana oo qabiilkii madax u ah oo 4 naagood qaba oo 4 guri leh oo karaamo leh inuu gaadhi dhigto masaajidka wiilka digtoorka inuu cilmigiisa wax ku helo inay qof walba xuquuqdu leeyahay helo nin walba ardaagiisa iyo beertiisa asagu yeesho aan gabadhiisa lagu faraxumayn waxaanu doonaynaa magaalo qiyaama inay baabaado jidkada dhex mara magaalo qiyaama ee jidka siraadiyado inaan baabiino dadkana xuquuqdooda inuu helo dowladda Ethiopia ka rabnaa inay nagu garab istaagto wasalaamu calaykum sidaan idiin sheegay cadnaan waxaad ahayd hantidhowrihii guud ee deegaanka waxaan ogsoonnahay haddii hantidhowraha iyo maxkamaduhu ay shaqeeyaan iyo hay-adaha cadaaladda sida sharciga in uuna waddanka sida noqon lahayn maalin cad baad ka soo dhaqaaqday markuu baarlamaankii iyo maxkamadihii iyo madaxweynihii deegaanka intuba ay sharciga u hoggaansami waayeen maxaad dadka u sheegaysaa dadku in badanba waxay isweydiiyaan war meeshan hantida la iska boobaya baabuurta lagu wato iyaynan xisaab xidh iyo waxbaba jirin bal maxaad dadka u sheegaysaa بسم الله الرحمن الرحيم سؤال ويديسي aad baad ugu mahadsan tahay waxaan u malaynayaa xilligii aan anigu hantidhowraha ahaa ma ahayn waqtigan ay masiibadu ka dhacday deegaanka xilligaa 250 milyan oo bir baan xukuumadda dhan ku maamuli jirnay waxaan ahaa hantidhowrihii ugu horreeyey ee madaxweyne ku dacweeya musuqmaasuq xilkana kaga qaadana haddaan maanta joogi lahaana maba joogeen waxaan meesha fadhiyaaba horta ma joogeen laakiin hantidhowr way dhaaftay arrintu waxaan rabaa inaan ka hadlaana ma aha arrintaan doonayaa inaan ka hadla ma aha hanti la lunsaday waa wax basiida wey xalay baa waxaa aan xasuustaa oo ka sheegayay goobta haddaynu nahay soomaalida ku nool gobolkan war dal burburay waa la dhisan karaa dawlad burburtayna waa la dhisan karaa dadkeenna hadduu damiirku ka dhinto waa khasaare weyn damiirku hadduu dhinto lama dhisi kara sida lagu dhisaa way adagta xag alloo ilaahay u gurmado mooye waxaad mooddaa marka dadkeenna inuu damiirku dhintay soomaali haddaynu nahay waxaa daliil u ah kuwaynu qabnay baa horteenna lagu kufsanayaa inuu damiirku ina dhintay waxaa daliil u ah kuwaynu dhallay baa horteenna lagu kufsanayaa inuu damiirku dhintay waxaa daliil u ah
kuwaynu dhallay baa horteenna lagu daldalaya aqoon yahan baynu sheeganaynaa siyaasi baynu sheeganaynaa anigu muddo gaadhaysa 10 sano ama ka badan ayaa deegaanka mamnuuc ka ahaa wax dembi oo aan galayna ma jirin saacadda aan kula hadlayo 5 gaari oo aan leeyahay ayaa sharci darre lagu dhex wataa jigjiga weligay kama dacwoonin hantida shakhsiyayga maqan waxaan uga dacwoon waayey meel dacwada ma leh dad nooloo la aasayaan arkaya marka magaadhi baa layga qaataan u dacwoodaa damiirkaygu may siinaya arrintaasaan ka dhiibiyey mana yeelayo ninka hanti laga qaatay waa sahalo waxaan maanta diyaar u nahay haddaan Soomaali nahay dullinnimo qaadan mayno ingiriis baanu ka diidnay oo talyaani baanu ka diidnay oo faransiis baanu ka diidnay wiilal yaryar oo geeljiroon oo annagu dhalay ka yeeli mayno oo lagu adeegsanaya iyagana waa lagu adeegsanayaa iyaga iyo inta dabada ka wadaba waanu iska celin waanu qaban waanu daldali waxaan halkan ka uga sheegaya waa dadkayagii waa dowladdayadii waa shacabkayagii dadka ku adeeganayana waa naqaanaa siyaasadda annaga noogama aqoon roona laakiin waxaan halkan fariin uga tabinayaa dhallinyartaa aanu walaalaha nahay aanu wada dhalannay ee dowlad deegaanka Soomaalida ka shaqaysa ama nidaamka dadka xasuuqaya u shaqaysa waxaan siinaynaa muddo aan 20 bari ka badnayn inay toobadkeen ku furan yahay intaan saacadda qiyaamaha lagu dhawaaqin wassalaamu calaykum okay wali barnaamijkan ku jirnaaye daawadayaal meel ka soo joogtaan daafaha adduunka shanta qaaradood waxaa ila taagan haddana Axmed Nuur oo adeeg badan u soo qabtay dalka khaasatan waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo waa maalqabeen baarin dhaweyto dib badan ka soo gaar marka waxaan rabnaa barfariintiisa isagana uu inala wadaagayo inuu maarka la wadaago السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed oo u midowday gaangis is-urursaday oo dalkeena xoog ku haysta markaan leeyahay waa gaangis is-urursaday gaangis dibadda inooga yimid maaha waa geeljireheennii oo gaangis ka sameeyey cabdi maxamed cumar waa gaangiska kii dhalay wey waxaan ugu baaqayaa ummaddayda cadowgan haysta ee wejigoodoo kale leh ee dadnimadooda inuu iyaga ka mid yahay u tusaya inay aaminaan inuusan ahayn iyaga waa cadow lagu soo tuuray ha iska qabtaan anu xoogahan ogahay ma oga bini'aadamku in badan oo ka mid yihiin xogaha aan ogahay xabaal wadareedyaan ogahay kumanaan baan ogahay qabaa'il siday u dhannaayeen la xasuuqaan ogahay gabdho badan oo magacyadooda garanayaa jiro oo sidii la doono inta loo galay haddana la xasuuqay oo la dilay ina hebel magacyadoodana caddaymahooda sharciyadaan horgeynaynaa cabdi maxamed cumarna sharcigaan hor keenaynaa dadka dembiga galayna waa isaga waxaana ugu baaqayaa dhallinyaradana gaar ahaan dhallinyarada hoggaaminta liyu booliska sharafta leh waxaan ugu baaqayaa dadku waa dadkoodii cadow baa ku laayey yaynan laynin dadkooda ha difaacdaan ha ilaashadaan cadowga waan qabanaynaa isagoo keliya dembiga qaba ha qabtaan cadowga waxaa ila jooga injineer maxamuud oo ahaa agaasiga guud ee dhulka injineer maxamuud wuxuu shaqadii uga soo tegey marka gurihii loogu talagalay danyarta la wada qaata ee loo samaystay sharciyo gaar ahaa waxaan tiro ku haynaa in ka badan 8,000 oo guri ayay sii marayaan inta lagu takrifalay inta laga bedelay taytaladii shakhsiyaal la siiyey marka bal waxaan leenahay injineer waxaad kala og tahay iyo waxaad dadka la qaybsanayso waayo waad maasantihiin kulli caawa farxad bay tahay in maanta qurba joogtii iyo qaran joogtii meesha isugu jirtay aan fursadan u yeelno sidoo kale saa uu sheegay hadda Bashiir waxaan ahaa agaasiga guud ee maareynta iyo maamulka dhulka ee dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya dhulkii agoonta waa la dhacay gurigii agoonta waa la dhacay guryo shakhsiyaad ay leeyihiin ba xagaf la mariyey tanna sharciga Itoobiya dastuurka Itoobiyana ma qabaan anu waxaan shaqada uga tegay runta markaan ka hadlo 8,000 oo guri oo dowladdu ay leedahay oo kiraabeedooyin la oranayay
ayaa ciidama iyo biyu iyo qaraabadiisa lagu taxay dadkii oo suuqa sida xoog laga saarayo dhul waxaa jira ciidamadii ka tageen ciidamada ka tageen hore ciidan macnaheedu waxa weeyaan cid kastoo Soomaaliya iyo waxaradii laga soo toogtay weeyaan xerada ciidankana waxa xaq u leh cid kastoo Soomaaliya la siiyo weeyaan laakiin xerooyinkii jijiga ku yaalay garab case iyo tii kale maarta ay raayilkaba qoyskiisu u qaybiyey waa waxyaalaha shaqada kaga tegay weeyaan waxa naxdin leh oday waxaa jira waliba weligaan iloobaynin oday macallin quraan oo shirishirinka ay ardaydu siiyaan ayuu jegada iibsaday odaygii xitaa waa laga qaatay jegada waa laga qaatay waa oday shirishirin macallin quraan ahaa oo arday iska warinay jago u iibsaday baa xitaa laga qaatay markaa dulmiga intaa in leeg diiniyan iyo dastuuriyanba ku meesha yaallana maaha ku Soomaali oo dhan maanta maaragtay ka wada xumaanayna weeyaan marka mustaqbalkan accountability ay man doonta waa laga dabi tegi doonaa insha Allah okay waxa halkay la taagan halgamaa hurre waxaad wada garanaysaan halgamaa bal ku soo dhawaada shanta qaaradood baa laga daawanayaa dadkii reer Galbeed meel kasta dadka hayjaangareeyana waa ku daawanayaan marka 10 wiilna maxaad oran 10 milyan maxaad oran aad iyo aad baad u mahadsantahay garag horta marka koobaad ilaahay baa mahad leh ilaahayga weyna waaxidkii halkan isugu keenay muddo aan ku qiyaasaya bil ka horna annagoo 4 aan meelahan fadhinay caawana aanan tirin karin dadka halkan joogay ee dulmadiidka ee ka soo horjeeda cadaalad darrada iyo kufsiga iyo barakicinta iyo dilka iyo dhaqan baabi'inta iyo suldaan laga dagaalanka iyo garaad ceejinta iyo ugaas dilidda iyo wabaraafidda iyo maxaan ku rahaa dhibaatada ka jirta deegaanka dadka diiday ee caawa halkan isugu yimidna tiradooda ma aqaan arrintaas aniga waxay ii tahay wax aanan soo qiyaasi karin aad baan ugu faraxsanahay 10 milyan haddaan fariin u diro 10 milyan way qaybsan tahay aqoon-yahan baa jira oday baa jira shaqaale dawladeed baa jira ciidan baa jira mid walba waxaan u dirayaa fariin ku habboon aan isleeyahay ku habboon tahay isaga ciidanka booliska ama booliska waxaan leeyahay shacabkiina waxaad tihiin shacabka dadka yimid aabbihiin iyo hooyadiin iyo walaashiin iyo seedigiin iyo sodogiin weeyaan dadkan shacabka ee aad u tihiin ciidanka waxaan idinka codsanayaa inaad shacabkiina ilaalisaan nin kasta oo meeshan soo mara oo madaxweynaha idinka wuu idinkaga tegayaa waxaadna u noqonaysaan haddaad sarkaal tahay sarkaal baad u noqon haddaad askari tahayna askari baad u noqonaysaan baarlamaanka iyo hay-adaha sharciga waxaan leeyahay dadkan idin soo doortay ee leedihiin baarlamaan baan u nahay u ilaaliya sharciga u ilaaliya sharafta u ilaaliya karaamada u ilaaliya dawladnimada ma aha kursiga cidna iskama laha maantana nin baa joogi berrina nin baa iman cabdi 11 nin baa ka horreysay 11 way ka dambayn doonaan insha Allah weliba mar dhow bay ka dambayn hay-adaha sharciga iyo garsoorka waxaan leeyahay waxaa weeyaan waxa deegaanka ka jira waa wax aad looga yaqaaqsado inaad qof walba oo laydin keeno oo aan wax lagu hayaa jirin iska xukuntaan 25 ku xukuntaan 15 ku xukuntaan waxaan jirin ku xukuntaan waxaan idin sheegaynaa jeelashii iyo meelihii dadka lagu caburin jiray Itoobiya waa la xidhay jeel ogaadeenna waa la xidhi jeel ogaadeen magacaana bixiyay qofkii horreeyay lagu xidhana waanahay haddana waxaan diyaar u ahay haddaad doonaysaan inaan galo iyo inaan dhinto labadaba diyaar baan u ahay laakiin dadka sharciga u ilaaliyaan idin leeyahay halkaasaan ka dhex galo maadaama magacaa bixisay jeel ogaadeen jeel ogaadeen ninkii lagu horreeyay lagu xidhaa tahay jeel ogaadeen dulmidiid way bedeleen waxaa laga dhigay masxabka ogaadeeniya way fiican tahay laakiin hadda marka adigu tibaadaa laga dhigi doonaa laakiin hadda waa jeel ogaadeen weli ka saaraynaa dadka insha Allah magaca markaana magaca sideedaada waa bixin doonaa laakiin masaajid baan u bixinaynaa Cabdiraxmaan baan u magacdaraynaa weli hadda waa jeel ogaadeen waxaa ku jira aqoon-yahankayagii waxaa ku jira odayaashayadii waxaa ku jira uwaasyadayadii waxaa ku jira suldaanyadii waxaa ku jira gabdhahayagii taariikhda nama soo marin gabadhtaanu inay xabsi ku dhasho taariikhda nama soo marin gabadhtaana in la deldelo xayla salaasaynana soo marin mingisti baynana soo marin mililix baynana soo marin dibna nooma soo mari doonto haddii ilaahay dhaa waan hubaa dadkii deegaanka lahaa wuu tashaday cabdiyow adiguna lafahaaga u tasho dadka ha caacayne okay
faanoola fari kama qodno dadka ma wada gaari karno runtii fariinta u gudbinaya waxay la jooga suldaanka waxay la jooga gudoomiyihii ururka dhalinyarada Shiniile waxa kaloo halkan ila taagan xildhibaankii ahliyeygii Ali Geedi marka waxaan isku dayayaa inaan la soo koobo sultaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idinku salaamayaa intii daawanaysa iyo intii daawan doonta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan idinku salaamayaa anu ma rabo inaan badiyo iyo inaan la hadlo dad gaara inaan la hadlo dooni maayo waxaan doonayaa inaan la hadlo Soomaalida deegaanka inaan la hadlaan doonayaa jinsi kasto ay tahay waxaan rabaa inaan la hadlo waxaan rabaa inaan u sheego inaynu inagu isdulminay eena cidina ina dulminin waa inaynu xaqiiqada ku soo dhawaano waxa Ilaahay Qur'aanka ku sheegaya waxa weeye wax sugan weeye waana ayad hadda degayso oo kala weeye hadda degaysaa Fircoon markuu Ilaahay maaratay Qur'aanka kaga xikaayooday Qur'aanka wuxuu Ilaahay Fircoon ku yiri isagoo Fircoon canaananin baa waxa la canaantay ummadiisa baa la canaantay waxa dina moodaa inaynu qibliyiin nahay damiir xumada markaynu qaadanay ayaa waxaynu gaadhnay halka canaanta inaga leh Qur'aanka Ilaahay wuxuu ku leeyahay fastakhaffa qawmahu fa'ada'uhu innahum kanu qawman fasiqin qomka fasiqin lagu sheegay inaga fasiqina dhibaatada inaga qoorta u dhiganay inaga daalimiinta gargaarnay mana aana daaliman sulida calayhi dulmigeena baa la nagu garaacaya aan ka toobadkeeno dulmigeena gacmaha aan isqabsano magacyaha gaarka aan dayno Soomaalida deegaanka Itoobiya inuu nahay waxaynu wax ku noqon karaa midnimo ninka xun waxaynu ku riixi karaa ee daalimka ee faajirka diinta islaamka iyo walaalnimo iyo muwaafaqaynu ku riixi karaa hebelnimo kolkii la yiraahdo nin waliba hebel buu noqon Soomaaliya midnimo aynu ku shaqeyno gacmaha aynu isqabsano dulmiga aynu diidno Ilaahay baa inaa leh Ilaahay baa diidnay okay waa soo gabagabaysanaa programkeena waa gudoomiyihii dhalinyarta Shiniile laba kalmadood barbaarta Shiniile dulmadiid marka laba kalmadood baa insha Allah ku soo dhawaada waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo maanta ku faraxsan anoo la jooga ana Soomaali oo dhan ahna professoradii ahna dulmadiid meel wada dunida daafiye ka joogaan waxaan ogeysiinayaa ragga aan la yiraahdo warmoog wartol Soomaali meel wada dunida daafiye ka joogto mid bay tahay barbaarta Soomaaliyeed mid bay tahay waxaanan ugu ballan qaadaya bisha Ramadaan dhexdeeda in magaalada Jigjiga iyadoonan taad ka cabsanaysay dirraba maciisa dirraba maanta Soomaali way ku dhantay iyadoo sidaa la rabo sifa brother waxaan ku weydiinayaa maxaad u diraysaa fariin dhalinyarada dawlad deegaanka inay sameeyaan ku daydaan dhalinyarada gobolka Shiniile barbaarta Shiniile maxaad kala u diraysaa dhalinyarada horta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dhammaan barbaarta ku nool cid aad ka cabsataan ma laha wax laga cabsado inna laga cabsado Ilaahay bay ku yaalaan war salaada tahiyaadkii baa lagu jira ninka tahiyaadka ka baxa salaadaas ma dhanna dhamaysta salaada tahiyaadka kaga bixinay dhamaysta oo ku soo biira barbaarta Soomaalida ma sha Allah aad baad maasanta brother okay oday ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed dulmadiid ku soo dhawaadeen waxa ku daawanaya dhammaan qurba joog Soomaalida dawlad deegaanka oo dhan baa ku daawanaya maxaad fariin u diraysaa waxaan fariin u dirayaa khaasatan fariintii aan barana balgudbi khaasahan waxaan fariin anigu u dirayaa Soomaali waa dad isku mid oo walaalaan waa dad wax wada qabsanaya halkan madashan maanta aan joognana waxa ugu yar oo ugu gaaban dadkaas aan anigu ka soo jeedo dulmigii Soomaali way nacday waxaan leenahay ka soo qayb gala duqaydiinii aqoonyahankiinii cid walba yimaada dhowr xubnood baan caawa ku joognaa annagii baa langaab ayaad langaab naga dhigteenay dadkiina kaalay wax la qabsado dawlad sii tagaysa haddaba joogine fariinta ayaad u diraysaa fariinta degmada raaw barre joogtooda iyo qolqol joogtooda samaroon oo dhan baan u dirayaa kaalay dadkiina wax la qabsado waa ka dawlad deegaanka sidaasaan caawa ku dhannahay dawlad deegaanka Soomaalida aanay waxba naga dhinay annaga ugu yarayn annaguna waa nagaas baaqa ugu dambeeyay u dirayna tolkay inay wax la qabsadaan dadka Soomaaliyeed yimaadaan gobolka Jigjiga hadhow tooriye maxay ku sheekaynayaan oo ayaa
way dhamaatay way dhamaatay ee hebel weeyaan way dhamaatay way dhamaatay waa afar magafa way dhamaatay way dhamaatay ما شاء الله magafa waa ilaahay magafa waa ilaahay kelmadu waa kelmad fiican ba laakiin dhinac xun buu uga dan lahaa okay waxa ila jooga gudoomiyihii dulmidiin South Africa oo isagana fariin idin la wadaagaya halka waxa idinka muuqata in dhammaan shanta qaaradood laga yimid iyadoo oo la iska kaashanayo dulmiga oo la rabo in dulmiga lala dagaalamo بسم الله الرحمن الرحيم هذه بانو فرحسناhay alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale dulmigii dadka daashaday waqtiga dheer jaaniska la siiyay inuu cimrigiisa soo gabaabsiyay waxa marxaati ka ah khiyaartii oo dhan iyo shanta qaaradoodba iyo dadkii deegaanka oo dhan way kaceen dad badan oo anigu South African ka yimid dad badan oo South Africa jooga oo wali halka ku cabsanaya jira sababtuna waxa weeye ninkani waa cadow aan wali dhulka korkiisa horay Hitler xataa noocan oo kala ma ahayn waxaan waxba dhaafaynin horor oo waxba dhaafaynin oo wuxuu ka xishoon jirin oo aan dhargeynin oo aan horay fiirinaynin oo dib fiirinaynin oo kor dhowraynin oo hoos dhowraynin oo aan hareeraha dhowraynin misaalka waxa weeye qofku horay haduu dhowro taariikh uu rabaa inuu reebo waxa laga qori doono yuu u fiiriyaa in uu wax fiican noqdo dib dadka Soomaaliyeed sharaf bay lahaayeen qiyam bay lahaayeen diin bay lahaayeen taariikhdoodii sooyaalkoodii iyo halgankii dheeraa umadu soo gashay waxba muuna fiirinayn hareeraha ma dhowro qof xishooda ma aha kor ma dhowro oo ilaahay kama cabsado hoosna ma dhowro cabdi iyo wax la halmaala ee inay godgalayaan ma garanayaan waraabo weeye dhigyacaba waxaan rabnaa inay ummadu dhammaanteed u istaagto oo madhariga iska celiso la fariimo laba kooban ah ciidanka liyu booliiska cabdi ma aha waxa dadka dilay uu amrayaa waxa dilaysaan waa dadkiini waxa dilaysaan waa hooyadiin waxa dilaysaan waa walaaladiin waxaad kufsanaysaan waa dadkiini taariikh madow baad galaysaan waxa ila quman jaanis baad hadda haysataan gacmaha isa saara idinku soo xidha idinka dadka xidhayay oo dilayay isaga soo qabta dadka u keena taariikh baad galaysaan haddii kale taariikhdii madoobeyd baad yeelan doontaan idinkuna ee aad la gasheen isagu uu tagayaa taariikh kala hada oo gacmaha ka soo xidha dadka u keena dawladana u keena والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وسوق بقبيسنا وحيلة تاجن. اللي ما جدي. جيسي اللي بعنا لا قرنكا. مسكي هذا يبغى جيجك هذا. أموتي جبيي دربيجي اللي بعنا بدنا مسؤول كاها. اللي ما جدي. اللي ما جدي واكن حلبان. balladkii shanta qaaradood iyo nimankii leedin oran jiray oo gacanta taaga ma tibidixda taagi jirteen oo tamsa midigta ilaa hadda midigta taayna dhaarba u yara kaanaysaa waxaan ma bidixda taagi jirteen marka waxaan bal ku weydiinayaa xilbaanadii meesha iyo qaabkaad ku soo gali jirteen idinka oo la soo doortay in telefoonada la idinka qaadayay bal dadka sawir ka sii meesha waxa la moodaa in xilbaana meesha joogaan bal sawir sii kulli telefoonada dhan waa bisaga iska leh شعب كله وكدرك سيهين فلو حنتي من موجا معناها واحنا نروح أنت نوانوجنا هاي دبعته مارتي وامد لقسمي هاي واحد مودا إن صدق عليها يودو كل دونا مارتي هاي دي شرع دجنتها فلنت يا جرسور كيا مارتي أنا ميدس كم نقدين خلق فينا مارتي ومامرو أنت وفيهم كهلا إن كبدنا بمارتي لهلا مارتي مسؤول كدينا بوسر وهلا خاصة وحي موجنا سمارتي وحي مارتي دومينيت جري أي هل مارتي ميركري نقطي marka waxa weeyaan mas'uuliyadu waa amaano weeyaan maartay aakhirana waa lagu weydiin adduunkana maartay bulshadaadii waxa weeyaan samcad xumo iyo maartay magac xumo ayaad kala kulmay marka hawshan way soo dhamaatay maartay way afjarantay dadkii maartay bulshada way midowday waxayna u midoobeen sidii dulinimada iyo maartay sharaf xumada la iskaga dulqaadi lahayn maartay shacabka ay u bixi lahaayeen maartay nasri shacabka maartay dantooda ogaan sareynta sharciga loo soo celin lahaa marka waxa weeyaan inta ku hadhay maartay daqiiqadaha aan maartay hadlayo mas'uuliyad gacanta ku haysay fadlan maartay waajibaadkaaga sidiisa u gudo maartay u soo noqo maartay waxaan waa amaano weeyaan waana taariikh wayna isqoraysaa barita maartay beej kale ayaa maartay bilaabmaya marka waxaan hawshan waa ay dhamaatay dadkii waa ay midoobeen waxayna u midoobeen sida ay dulmiga iyo maartay dhibaatada iska dulqaadi lahayn waxaan idin leeyahay maartay qeyrkii dhinac ka raaca ma soo raaca assalaamu calaykum Mr. Geedi waxaan ku weydiinayaa baraadar xildhibaanada aad kaga timi jigjiga ee saaxiibada iyo shaqo wadaag ka haydeen dulmiga aad diiday ee ka carartay maanta u shaqeynaya xildhibaanada saaxiibada maxaa halkan fariin uga diraysaa waxaan maartay aan uga dirayaa halkan waynu is ognahay maartay xildhibaanadii haddaad tihiin waxa weeyaan xaaladda maartay waqtigan ku sugan oo ognahay wax bulsheenna wakiil ka ahayn
bulshadii maaragtay waynu khaynay runtaa fiican xaqiiqada صح maseerkoodii maaragtay kama hadalno dantoodii kama hadalno danteena ayaanu kaga hadalnaa marka waxa weeyaan inaynu maaragtay shacabkuna maaragtay muraayad baan maaragtay ku dhex jiro meel kasta caalamka waa laynaga arkayay marka waxa weeyaan good baynu ku dhacnee haddaad fadlan istaba qabtaa saddexda cisha soo socota inay istaba qabtaan baan maaragtay rajaynayaa miidiya ay ka hadlaan nin kasta maaragtay samcadii sharaftina oo soo ceshado shacabkan uu run u sheego maaragtay been inaan loo sheegin assalaamu calaykum aad baad ma xildhibaan baan weydiinaya ugu dambaysa sidaan ogsoonahay kilalku wuxuu leeyahay dastuur sidoo kale xisbiga dalka maamulana dastuur weyn wuxuu leeyahay xeer hoosaad waxaa nagu maqaalo ahay inuu cabdiilay samaystay xeer hoosaad 11 qof ay ku qoran yihiin xildhibaanadana kaa un lagu maaragtay miyaa laydin wax article aha iyo waxba miyaa maaragtay waxyaabo laydinka baaskareey muu jiraa because waxaan ognahay baabuurtu inay lacag ka buuxdo sharciguna ma ogola marka bal sharcigan hoosaadka ah ee dadka lagu xukumo bal war naga sii sida uu hirgalay sarinta sharcigu maaragtay kow shacabka ilaalinaya waxaad ka garataa halkaa inay was sharin sharci aanay jirin oo maaragtay la daba maray waxa weyn jidda qardajeexa lama oran karo macnaha wax sharci ah maaragtay wax lagu maamulo wax sharci ah lagu socdaa hay'adaha kala duwan si u dhayihiinba jidda qardajeexa la socdaa marka taasina waxay noqotay maaragtay in shacabkii dhibaato maaragtay ay ku haadsato lama oran karo maaragtay wax sharci ah meesha deegaanka ka jira marka waxaan aaminsanahay in jidda qardajeexa la socday ciddii istaba qabanaysa hadda inay saxdo shan cisho gudood bay maaragtay waqti ku haystaa inay saxdo taagan isaguna xildhibaan hore oo dowladda deegaanka federaalka qaybta federaalka ahayd bal isaguna wuxuu leeyahay fariiqiga aadan ayaan bal dadka la wadaagayaa xildhibaan soo dhow anu waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka jijiga ka jira iyo waxyaabaha anu halkan waxaan rabaa inaan kala hadlo maamulka jijiga ka jira iyo dadka uu ku shaqaysto ciidanka liyu booliska sida qaldan loo isticmaalay ciidanka marka hore waxaan u sheegayaa walaalayaal waxaad tihiin askartii deegaanka askartii dadkaad tihiin shacabkaad ka soo baxdeen in laga adeegsado wax sharci darraa waad ogtihiin gabadhii qaldaar ku dhimatay askartii waad ogtihiin walaalayaal gabadhii qabrdahar lagu dilay ee lagu marjiyey dadkii loo adeegsaday askartaha inay xidhan yihiin oo xaaladoodu meel ay ku sugan tahay loo marka askari oo dhan waxaa u taalla xeerkaasa u yaalla waa lagu adeegsanayaa dadka lagu dilayaa marka dambana waa lagu dilayaa saada sirta u bixinin ama meelaan lexaha la garaynin baa lagu geenayaa marka askarta waxaan u sheegayaa hadday liyu boolis yihiin iyo hadday boolis caadi yihiin hadday maleeshi yihiin walaalayaal dadku waa dadkiinni waa dadkaad ka soo baxdeen nin walba hooyiya aabbaa dhalay abti baa lidin yahay eeddaa lidin yahay dadka lidin adeegsanaya ee sharci darrada lidinku adeegsanaya arrintaas inaad ka waantoodaan oo idinku naftiina aad ku dhimanaysaan oo asaga ninkii idin soo daray idinku dilayo marka waxaan idinka codsanayaa arrinta inaad iska diisaan tan laba dadka deegaanka soomaalida waxaan rabaa inuu sheego meesha nidaam kama jiro dal iyo dibadba waxaan rabaa dadka deegaanka Soomaaliya waxaan rabaa inaan u sheego dal iyo dibadba in meesha nidaam uusan ka jirin sharci uusan ka jirin hadda wixii ka dambeeyana dadkii lahaa xukuumadan iyo dadka shacabka deegaanka lahaa inay dhiiradeen ay u soo jeesadeen waxaanse kaloo idin sheegaa fariin ah hadda ka hor dowlad dhexe oon u baxsanno waan weynay in badan baan u tagnay in badan baan la hadalnay anigana idin la hadlay 10 jeer baan baarlamaan ka hadlay oo idho dadka ayagu maaha adhe inta la xareeyay ay irida lagaga xidhay maaha 10 jeer baan baarlamaanka hortiisa ka yidhi tii waxbaa ka socon waayay laakiin maanta waxaan filaynaa waqti dhow gudahood xukuumadna dhegaysanaysa oo warka ayaga maqlaysa inay jirto waxaan kaloo u sheegayaa ninka deegaanka jooga ee sharciga marna ku tumanaya marna ka dhiganaya dhufayska sharciga waad ku tumatay waxba kuma lihid sharcigu dambiilaad ka tahay waa inuu ku xukumo iyo waajib ku saaraya waxaan kuu sheegay inaad maanta tiraado sharciga dhufays ka dhiganaya sharcigaad hore u jabisa maanta kuma difaaci karo dowladda federaalka haddaad moodayso fiicana inaad uga korto waxaa jira qodobo dastuuriya oo haddii shacab deegaanada ka mid a uu ku kaco sharci darro sida gobodfallada xuquuqul insaanka in dowladda dhexe ay farageliso qodobo saxiix ayaa jira arrintaa waa inaad aaminsanaato haddii sharciga wixii hadda ka horreeyay waad ka leexatay maalmahan aad ku soo noqon weydo in annaguna aan dowladda federaalka garab u nahay in la farageliyo nidaamka aad meesha ku haystay jabhadaysa waa nidaam jabhadeed maaha nidaam dowlad meesha kama jiro in la farageliyo oo risaasta iyo hubka iyo lacagta deegaanku leeyahay ee dadka shacabka lagu dilayo in arrintaas ay dowladda federaalka aysan ka dhowran karin indhaha annaguna aanan iyada lafteeda ku daba taagan inay tilaabo qaado risaasta lacagta
iyo nidaamkii dowladnimo si sharci darraa loo adeegsaday waa shaati barbar cawra loo xidhay nidaamka meesha ka jira marka cabda waxaan ku sheegayaa waqti yar baad haystaa madaxweynaha ayagii baa tahay inaan ku cafino oo si nabada ku noolaato yaa dhici karta haddii aad qaadato waanada iyadu haddaad maanta istaba qabato xildhibaanada qoladan xisbiga ka jimcaha horjoogayaasha ka waxaan idiin sheegayaa war meesha waxba kuma haysaan meel cidlaa tubantihiin waxaa tihiin ula wax lagu garaaco usha markay jabtaan waa la iska xooraa markay fiyuudar geela lagu kaxeeya noocaasaa tihiin wallaahi run baa idiin sheegaya wallahi noocaasaa tihiin sharcigu wuu shaqaynayaa siduu ahaa wuu hirgelayaa dembiilayaashana waa la soo qabanayaa nidaamkii cadaaladna uu dhammaystiran yahay ee tilaabada lagu qaadi lahaa والسلام عليكم. soo gabagabsanayna ninka dhalinyarta hadlaya dee waxaan ku soo ugaas ku hadlo ugaas maxamed amiin maxamed hadlaya kadib waxay noo soo gabagabaynaya inoona ducaynaya ugaaskii dhammaan shanta qaarood meel kastoo joogtaan marka insha Allah ugaaska inoogu dambeynaya ninkan aan ku soo dhaweynaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بني السلام يا رمضان كريم أنا أقول الله يمجع dhalinyarada Addis Ababa waxaan dilayahay السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan kaloo idinka soo jeedinaya إن شاء الله كل nidaamkan hadda waa iska sii socdaa wuu duraaqsaday marka waxaa leeyahay dhalinyarada yararka ah ee sideedoo kale anu ganacsada halkan ka ah intii la iga qaaday baa sharcigayga jijiga la iga haystaa 3 sano bil iyo waxaan xidhnaa 20 cisho sharcigayna waa la iga qaatay ninna walaalaha la iga haystaa al-shabaabna waa la iga xukumay marka waxaa leeyahay taasi ma noqonayso sharciga ha lagu soo noqdo haddii ilaahay yidhaahdo ee waddankana dastuur buu leeyahay tan Addis Ababa iyo jigjigana waxba kuma kala duwana marka waxaan leeyahay dhammaan dhalinyarada waxaan rabnaa inaan nolosha ay Addis Ababa ku nooshahay inaan ku noolaano gaadhiga Addis Ababa laga wato inaan wadanaa doonaynaa guriga Addis Ababa laga dhistay inaan dhisanaan doonaynaa inaan ganacsadayaal noqonaan doonaynaa inaan waxbarashadayada ay dhalinta halkan ay la joogaan la soo bixiyaan doonaynaa federaalka lagu soo darsado aan ka wax la qaybsanaa doonaynaa dalka ee ma doonayno inaan guriga dulda u xidhnaano ma doonayno taana waan diidnay hadda wixii ka dambeeyana dhalinyaradu waxay tiri ma doonayno wabillahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله. Okay waa soo gabagabaysanaynaa meel walba oo joogtaan waa mahadsantihiin ugaaskan ku soo dhaweynaya ee Suldaan Cabdullaahi Suldaan Maxamed oo fariin inoona soo gudbinaya ducana inoo soo gudbinaya barnaamijkan inoo soo gabagabaynaya insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo Suldaan ku soo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullah mar dhow baan hadlay waxoogaa farganaxa oo aan filaynin bay farxaddu iga keentay hadda waxaan doonayaa inaan idiin soo gudbiyo meel aad joogtaan bashanta qaaradood ee dunida waxa xaqiiqada ah waddanka ka jira ma jiro qof koobi kara waxaas wax uu yahay nin waddanka waxaa qabsaday cilmiga la col ah oo caqliga la col ah oo taariikhda soo jireenka la col ah oo diinta islaamka la col ah oo diinta gaalada la col ah oo wax alla wuxuu dastuurka la col ah wuxuuna col lahayn una jirin waxaa ka mid ah ninkaas waxyaabuhu jideeyey weli rag badan baa hadloo ma idaashay 400 ama 500 oo gabdhood baa xafaayad xidhan oo uu yidhi hala fuulo waa ninka yidhi ee ninka yeersiiyey yidhi war waxaad tidhaahdaa idahaanu fuuli jiray idaha ariga saydaha ah idaha baa seedin noqday hadda iyo dunida oo dhan baa laga maqlay bal fadeexada waddanka u soo jideeyaga waxaa jirta oo kale waa ninka yidhi wasbadiid waa nabadiid bal ilaahay baan idinku dhaariyo dhadhamiya inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waa ninka soomaaliya oo gubanaysa kililkii soomaalida ee Itoobiya ay dambideen ay ku qaxeen ay wax hargeysa tagay wax amar tagay wax kismaayo tagay noqdeen ma inuu dad idin joogaad moodaysaa waa wuxuu dilay wuxuu xidhay wuxuu eriyay xaqiiqada horta waa saa waa ninka sameeyay mangista anigu waan soo gaaray hayla salaasna qaybtii dambe ka soo gaaray qoladana waan arkay waa ninka ay ka suurowday aqalkan caaqil sulub oo ka bax waxaa galaya cabdigan oo aniga isu xigno anigu xageen ku caa meesha ku xuga waa xaqiiqo weyn shan degmay ka dhacday waanu cadaynaynaa waa Soomaalida waxaan u sheegaynaa wax dawladda Itoobiya u gudbinaynaa dad Itoobiyaana xuquuq baan ku leenahay dastuurka waddanku leeyahay baan leenahay yaana lagu daawanin balaayadan ummadda baabi'inaysa waa wax ceeb ah oo adduunku wada og yahay midiyaasha caalamka oo dhanna waanu sheegaynaa wax badan baan xidhanay afkayaga iyo addinkayagaba waan furaynaa dawladda horta sidaasaan u sheegaynaa dadweynaha kililka Soomaaliyeed u dhashay horta kilil Soomaaliyeed baa meesha la yiraahdo ogaadeen iyo lama yiraahdo
lama yidhaah ogaadeen male soomaali oo dhan baa iskale magacaasuna waa magac mujrim weeye magaca waddanka bi'iyey weeye waa magaca lagu ugaadhsado weeye wax ka jira male soomaali baa le etoobiya iskale waxaan sheegaynaa soomaalida etoobiya nacaskaa iska qabtaa waa wax dhibi yar kuwa hor ordayaabeenu barqin ku qabqaban karaa barqin baan ku qabqaban karaa barqin yaan ku qabqaban karaa ogaadeen soo ka dhameeyey ma ogaadeen ku nool baa jira war anagu ogaadeen baa nool maanaan odhan waxaan ku nidhi daalimiinta dulman baa tiid annagaa ku nidhi waayo aygana dadka ka qaban weydeen wuxuu wax ku qabsaday ogaadeen baan ahay bay ahayd wuxuu ciidanka ku samaystay ogaadeen bay ahayd ilaahay baa ku salliday dadkii oo dhanba maxay ahayd nabigu muxuu yidhi waxay ahayd iisoo qaba man acaana daaliman sullid calayh waa koow waxaa kaloo taalla wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa dadkii fitnadii way caam yeeshay balagada islaam weyn oo gahowday oo raggay dhashay aad u fara badan yahay iyo dumarkay dhashayba yuu dilay aarbuu yaalay warga islaanta maxaad u dishay waa islaasha qaasha hadalayaa buu walaga daday ma islaasha qaasha hadalayaa buu balad ibis ogaadeen raggii ogaadeen baan dhameeyey hadda isaga qiraya waxaan ku leenahay cabdiyow ilaahayna ku saamix maayo waa la hubaa waayo waad ridowday wadaad reeraha iyagoo maalin dhaweed kaa garab hadlayna waan hubnaa inuu diinta islaamka ka baxay taariikhna anaa suldaankiisi ah waan la xisaabtami doonaa hadduu noolaado adunbu ku raaci meel alla meeshaad u kacdo u kici haddii lagu dilo waa la dili haddii lagu xidho waa la xidhi marnaba ma sii joogi karo ninka adiga kugu yidhi waa saxaabi diinta islaamka wuu ka baxay nimanka new booliska aan sheegaya waa dambaabteen shaydaan baad raacdeen astaqfirulaysta nakasa calaa cadibahi u odhan doonaa shaydaanku dib uu sado kolkuu arka balaayooyinka qiyaamada war shaydaan baa idin horkacaya iskaga hadha tooba keena isagay saaran tahay ha raacina muddo qariibana idiin dhowdhowdahay dadkiina dad ku tihiine dadkiina u soo noqdaa assalaamu calaykum adeer intaanad inoo ducaynin waxaan dhallinyarada qurbaha ka timi waxaa jira dad qurbaha jooga oo dulmiga halkaa ka jira fariin gaadhsiinaysa iikaadi adeer iikaadi ilaa khara ku siiye dadka maxaad fariin gaadhsiin lay sidoo kale waxaa jigjiga jooga dad garcadaalayaala oo ugaasiye sheegta oo salaadiin sheegta oo 80 jira ka waaweyn oo dulmiga iyo dhibaatada aad soo aragtay aad ka sheekaynayso ku raaliya iyagana maxaad fariin u diraysaa waxaan u dirayaa kuwa salaadiinta ee halkaa jooga mas'uuliyad baa saaran ilaahayna wuu og yahay in mas'uuliyadii saaran tahay mas'uuliyaddii saaran kamid yahay oo waan u cudur daaraynaa maxbuusnimadaan ugu cudur daaraynaa laakiin kuwa cubalada eenu naqaano ee calooshooda shaqaysayaasha ilaahay baa risqiga bixiye wax cabdi ilay hayo ma jiraan haddii ilaahay risqiga ka xidhana wuu ka xidhi hadduu ku dilina wuu ku dili cabdi ilayna marna kuma badbaadinayo kuwaana saasaan leenahay kuwa qurbaha jooga qaar waxaa jooga annaga reerka yaga waxaa ka mid ah cabdiqani faarax nin la yidhaah 70 milyan yuu wuxuu ku iibsaday 5 degmo oo reerkoodu deganaa wakaasuu dadkii weerar ku qaaday baabuur buu iibsaday Australia ku difaacayaa ma soconayso isna waan la xisaabtami doonaa kuwa ku rumaysan Mareykanka ku cabsanow ilaahay baa Mareykanka ku dilay wallahi inaad noolaanay haddaad timaadana ilaahay baa ku dili haddaad mar walba waa lagu xukumay waxaad la cabsanayso ma garanayno annaguna ma qaadanayno dulli ma qaadanayno mana qaadan doono halkeen joognaana waa dhisay caawa halkaan joognaan waxa kale inaan waa sababa bari mooya saadman waxaan tagi doonaa waa jigjiga saasaan idin sheegaynaa dalbigeena Allah dhaaf amiin waalidiinteena Allah dhaaf amiin Allah inoo gargaaro akhriya aduma waxaan rabnaa Allah ina siiyo amiin wa ramadaan rizq barakada Allah ina siiyo amiin ka Allah ina qabto amiin قريم الله ينقل إله الله أكبر وأنهم لا يأكلون يستجيب لك ماذا يدين ربي يوددك نوغر ربي يوهنور أجين أفضل ورمضان إلهي ومحمد هذا كبد بالي بحر عمرية آمين وقل وحشينا يا ننقرني أصلا فاتحة بسم الله فاتحة بسم الله ولا يقدر يوصل من أبو قادم يوصل يا وحوي فرين عضبان وهل كانوا قدرنا عبديلي ويسرع علي وسوق بقبلنا برنامج إن شاء الله تعالى وحوي يعني يجوا تكتيجي كسو عيتمان تكتيجي كسو أي كسو
ay ka soo caytamaan halkan fariin cad baan uga diraynaa fariin cad ayaan halkan uga diraynaa cabdi ilay muxyidiin ya waan duu wari kor garaysantay brother markaa waxa iyagu kun baa daawanaysa kun iidi baniga markana aynu saarnaa insha Allah ayas ilaa akhira ku sii adarsin haye reed midiyada wadna aragtaan waa guulaysanay Addis Ababa ka shidan tahay baritoona wad ogtiin meesha wax laga qaban karo ma jirto salaadiintii siyaasiyiintii uqaashi wadna aragtaan dulmigu ma shaqeynayo waxa ku daraya bashara waxa ku daraya wallahi caaw markii halkaan joogo wallahi waan qirooday waxaan ka qirooday dadka dhammaan dawladda deegaanka ka soo jeeda oo qolo gaara aan u badnayn oo dadka oo dhan ka siman yihiin ayaa meesha joogay caawa ka casheeyay qof kasta wuxuu uga hadlay si qeyrala uga hadlay waxa weeyaan waxay u tahay fariin cad u tahay dadka wada jirkooda sutagooda iyo wada jirkooda u tahay cabdi ilay aan qish yar siiyo cabdi ilay waxay guushaada ku jirtaa midnimada dadka wad ka shaqayso waanad garan weeday ilaahayna uu waafajin waayay annaga ilaahayna waafajiyay iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed deegaanka nool waxa la dulmidid ha noolaado cabdi ilay ha dhaco annagu ma caayano hooyooyin ma caayano dumar la qaba ma caayano ay ma rabno intaas annaga kugu filan cabdi ilay oo cay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh okay sidaan horay u soo gabagabaan idinku sheegay dhammaantiin waa salaamantiin shanta qaarood dadka jooga meel kasta waxaa farxadii ahayd inaan caawa sharaf kula wadaago casho sharaf loo sameeyey reer dulmidiid meel kasta oo ay ka yimaadeen shanta qaaradood iyo dadkii qaranjoog dhammaan waxaad arkayseen inaan mikrofoonka aan la wareegayay oo aan dadka runtii aan time u wada helin inaan la wada hadlo dhammaantood dulmigay diidan yihiin fariinta shacabka waxaan leeyahay midnimo dawadii uu dhakhtarku qoray ee dadkeenna anfacda waxa weeyaan waa midnimo wax ka hooseeya ma laha midnimada ayaan cadaalad ku helaynaa midnimada ayaan wada noolaansho ku helaynaa midnimada ayaan dawladnimo ku helaynaa midnimada ayaan danteena ku soo ceshanaynaa midnimo ayaa ku deeqda qabiil kuma deeqo ninka qabiil u ordayo qabiil ma ahan ninka cabdi qabiil moodayo qabiil ma aha waa 12 nin oo ilmaadeer aha kuwa uu qabiil ama magac la wadaago waa kuwa uu gabdhahoodii xitaa mindi intuu u quri waayay ama xabadu ku dhufto uu ciijiyey weeyaan ma u dulqaadanayno waa gabdhaha oo intuu u fidnooday uu yidhi halla kubsado ee jeelasha ku wada dhalay jeelasha ku wada duugan waxaa nasiib darro ahaa magaalada jigjiga ama degmooyinka dhan dhammaantood habeenkii dad baa la xabaalaa maalintiina dad baa la xabaalaa habeenkii dadka la xabaalo ayaa tiro badan 10 jeer ka badan dadka maalintii la xabaalo because maalintii waxaa la xabaalaa hal ama labaad arkaysaa xabaalaha waaweyn laakiin habeenkii waxaad arkaysaa cagafta dawladda hoose oo habeenkii oo dhan xabaalo qodaysa iyadoo every night xabaal wadareed qodaysa marka runtii waa yaxya documentary baa laga sameeyey min hadda aanan rabin inaan tuso oo suxufi ah ayaa documentary ka sameeyey documentarygaasna uu soo bixi doonaa insha Allah bidmillaahi kariim dulmigu uu tagayaa wax yar baa u hadhay fariintayda ku aadan cabdi waxaan leeyahay horeyna aan ula hadlay cabdiyow ilaahay ayaa ku saaray mas'uuliyaddan waa lagu la xisaabtamay waana lagu xisaabtami doonaa in adeero xilka si nabad ah ku soo dhiib ummadda u dhiib icafiya dheh 100 jeer baan kula hadlay waxa aad samaynayso waa daalinimo nimanka kula talinayana dulmi unbay kugula sii talinayaan dowga ayay kaa sii radayaan intaas ayaan kugula talinayaa aniga sida aan ummadda u sheegnay ma caytano qofna ma caynayno horeyna qof ma naan cayn waxaan laakiin u banaynaynaa wasiiradaadu inay na soo caayaan wasiiradaadu inay soo aflagaadeeyaan oo bimbe u yihiin waliba waan ku marti qaadaynaa laakiin waxaan ku odhan lahaa wasiirada qabaa'ilada kale live-ka galaha odhanine haddii aad run sheegayso wasiirada aad ilma adeerka tihiin live-ka soo gala iyo adiguba oo kuwaas hana soo caytamaan haddaad run sheegayso wasiirada kale ee meesha jooga ee live-ka gala leeyahow dee shaqadiinii weeyaan oo shaqo kale ma qabataan laakiin waxaad ku xisaabtataan bal waxaad tiraan aabbo baad tirahdaan kolley bal wasiirada adiga kula dhashayna live-ka ha wada galaana maadaama live-ka uu noqday shaqadii hadda meesha aad ka haysaan dee aabba shaqadii ma qabanayaan annagii waa shaqadii qabanayne iyagana shaqada dee inay soo galaan ayaa loo baahan yahay dhe bal markaa shaqada iyagana soo geli halkaasaan kusoo gabagabaynayaa gudoomiye ku-xigeenkii baan kusoo gabagabaynayaa
السلام عليكم حانو مرينا يا dadku way wada hadleen annaga reer dulmadiid aad baan u faraxsanahay waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan halkii fariina uu sheegay muxuu ahaa afayeenku oo ah waxaan Soomaalnimo ahayn oo nadeeqaya ma leh midnimaan deeqaysa wixii dadkii meesha aa ka soo wada hadlay Soomaalida deegaanku degto oo dhan buu ahaa qabiil ma uu leh wax ka dambe Soomaalnimada ma deeqdo qofkii fikrad kale leh isagu bahalki shirka Minnesota sheegtay warsiis ka dhacdo waxa kale oo aan rabaa inaan idin la wadaago reer Minnesota shir ayay qabanayaan 26 bishan hadda aan ku jirno oo laga soo jeedo dulmiga hal laga soo wada qayb galo dhammaan Jigjiga Center waxa weeye address waa 1516 and East Lake Street Minneapolis hal laga soo qayb galo abdi waxaan ku leeyahay jagadana way kugu weyn tahay 8 milyan iyo badh 8 milyan iyo badh ma xukumi kartid waxa samaysay waa samaysay waxa dishay waa dishay waxa kufsan kartay waa kufsatay waxa cayn kartay waa cayday niyohow caruurtaada u hiili caruurtaada u naxariiso caruurtaada xumaanta hooga tagin dad hooga tagin muxuu ahaa nabad ha ku noolaadeen intaasaan ku leeyahay waxaan kaloo aan dadku u sheegayaa dhammaan inay ka soo qayb galaan dadka Addis Ababa waaxigeeda jooga iyo inta deegaanka joogteen nacab muxuu ahaa dulmiga 27 bishan waxaan ku qabanaynaa shir insha Allah muxuu ahaa afur عشان بانو كو قبنينا وانو كو قبنينا شرطن ان شاء الله هدو الهي يدهدو والسلام عليكم ورحمه الله شرطن هوتيل